sheekada saddexaad roobkii lagu halaagay qoomkii nebi nuux wakhti dheer kadib dad badan ayaa yimid adduunka oo ku noolaa waxay noqdeen qaar dembi badan oo dagaalama aad ayay u xumayd in ilaah ka xumaado waxay dadkii samaynayeen kadib wuxuu go'aansaday inuu biyo ku baabi'iyo adduunka oo dhan laakiin nebi nuux ilaah ayaa u naxariistay waayo wuxuu ahaa nin xaq ah oo bilaa dembi ah kuna dhex noolaa dad aad u xun oo dembi badan ilaahay wuxuu nebi nuux u sii sheegay inuu qorsheynayo inuu biyo ku baabi'in doono dadkiisa wuxuuna ilaah ku amray inuu nebi nuux sameeyo doon aad u weyn ilaah wuxuu nebi nuux ku yidhi waxaad samaysaa doon dhirirkeedu dhan yahay 300 oo dhudhun ballaceeduna yahay 50 dhudhun sarajooggeeduna yahay 30 dhudhun waxaadna ka samaysaa qoryo taasi oo uu nebi nuux ka sameeyey 3 dabaq oo qolol fara badan iyo daaqado leh doonta waxaa la rabay in nebi nuux iyo qoyskiisa qaar ka mid ah iyo inta xayawaan ee lagu amray nebi nuux lagu badbaadsho nebi nuux wuu adeecay ilaahay isaga iyo 3diisii wiil way sameeyeen doontii oo sidii uu ilaah u faray ayay u suubiyeen sanado badan ayay hawshii doon samaynta ku dhex jireen maxaa yeelay doontu aad ayay u weynayd nebi nuux dadkii aad ayuu ugu digay in biyo lagu halaagi doono wuxuuna ku dhiirageliyey inay xagga ilaah u laabtaan oo ay caabudaan isaga laakiin way rumaysan waayeen fariintiisii wanaagsanayd ilaah wuxuu ku amray nebi nuux iyo qoyskiisii inay raashin ku filan iyaga iyo xayawaanada diyaarsadaan markii ay wax kasta diyaar noqdeen ayaa ilaah ku yidhi nebi nuux waa wakhtigii adiga iyo 3daada wiil iyo xaasaskoodii ay geli lahaayeen doonta waxayna ahaayeen 8 qof ilaahay wuxuu nebi nuux u soo diray xayawaan kasta oo lab iyo dhadig ah iyo shimbiro si ay u fuulaan doonta nebi nuux oo ay uga badbaadaan biyaha daadka ilaah wuxuu soo diray 7 lab iyo dhadig ah oo xayawaan kasta ka kooban kuwa allabariga kuwaasi oo loo isticmaali doono xilliga rabbiga la caabudi doono markay dhammaantoodii fuuleen doonta ayaa rabbiga xiray albaabkii doonta kadib roob ayaa bilaabmay roobkii ayaa kala joogsan waayey roobka wuxuu socday 40 maalin iyo 40 habeen isagoo aan kala joogsi lahayn roobkii ayaa dhulka oo dhan qabsaday xitaa roobkii biyihiisu waxay qariyeen dhulka oo dhan oo xitaa waxay qariyeen buurihii dhaadheeraa oo dhan wax kasta oo dhulka ku noolaay way dhinteen oo keliya waxaa badbaaday dadkii iyo xayawaanadii ku jiray doonta markii roobkii joogsaday doontii 5 bilood ayay dul socotay biyaha kadib maalin ayaa doontii buur dul istaagtay laakiin weli biyo fara badan ayuu dhulku lahaa oo dhulka dhan biyo ayaa haystay 3 bilood oo kale markay dhammaatay ayay buurihii soo muuqdeen markay 40 cisho oo kala dhammaatay ayaa nebi nuux u diray shimbir bannaanka si ay u soo fiiriso dhulka in weli biyo leeyahay markay shimbirtii aaday bannaanka way ka soo laabatay waayo ma jirin meel ay ku istaagto oo engegan hal isbuuc kadib nebi nuux shimbirtii ayuu mar labaad diray waxayna la soo noqotay caleen ay afkeeda ku soo qaaday biyuhu way ka hoos mareen dhirta xilligan oo geedihiina way soo baxeen markii saddexaad nebi nuux wuxuu u diray shimbirtii inay soo fiiriso dhulka markaan shimbirtii ma soo laaban markaasuu nebi nuux ogaaday inuu dhulkii engegay ilaah wuxuu 2 bilood kadib la hadlay nebi nuux oo wuxuu ku yidhi adiga iyo qoyskaaga iyo xayawaanada ka soo baxa doonta waxaad heli doontaa carruur badan farcankaagana dhulka ayuu buuxin doonaa kadib nebi nuux iyo reerkiisa way ka soo baxeen doontii markii uu nebi nuux doontii ka soo baxay wuxuu sameeyey meel uu ilaah ku caabudo laguna wanqalo ilaah aad ayuu uga raali noqday arrintaas uu nebi nuux iyo reerkiisaba sameeyeen ilaah wuxuu yidhi mar kale dib u burburin maayo dunida
inkastoo bini'aadamku aanay joojinayn inay dembaabaan oo xitaa markay da'doodu yar tahay, haddana ma burburin doono. Ilaah wuxuu soo sawiray qaanso roobaad. wuxuu Nebi Nuux u sheegay una ballan qaaday inay qaanso roobaadku tahay calaamad inaanu mar dambe burburin doonin adduunka isagoo ku sallidayo biyo daad ah.